wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta Muqdisho soo gaaray dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa ku wajahan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana garoonka dayuuradaha ku soo dhaweeyay wasiiro ka tirsan xukuumadda oo ugu horeeya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Madoobe ayaa saaka ka soo ambabaxay magaalada Kismaayo waxaana la sheegay inuu wato ilaalo gaar u ah safarka madaxweynaha Jubbaland ee Muqdisho maanta ku yimid ayaa ujeedkiisu yahay dhamaystirka heshiiska dawladda dhexe iyo maamulka uu hogaamiyo ee Jubbaland heshiiskani ayaa bilowday kadib safarkii ra'iisul wasaare Khayre oo toddobaadyo ka hor ku tagay magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka ah ee Jubbaland maamulka Jubbaland ayaa waxaa xilligan ku soo fadlay doorasho taas oo la filayo inay qabsoonto bisha Agoosto ee sanadkan madaxweyne Axmed Madoobe ayaana la sheegay inuu ka cabsi qabo loolan aad u xoogan oo kaga yimaada musharaxiinta kale ee kula tartamaysa doorashada madaxtinimada maamulka Jubbaland dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa saacadaha soo socda waxa uu ku wajahan yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaana lagu wadaa in halkaasi uu kula kulmo madaxda maamulka Galmudug oo ugu horeeya madaxweyne Xaafe waxaana la sheegay inuu kala hadli doono khilaafka ka taagan waqtiga ay dhacayso doorashada maamulka Galmudug madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeeray qaar ka mid ah xiriyaha militariga Soomaaliya ee ku yaala magaalada Muqdisho iminka waxa stuudiga ugu la sugan tafsiirada idaacadda kulmiye Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim oo arrimahaasi la socday Cabdiqani madaxweynaha halkee ayuu kormeeray masajirta hadal uu u jeediyay ciidamadii uu la kulmay ama saraakiishii uu goobaha ugu tagay maxamed shuuriye waad mahadsan tahay iyadoo dadka inta badan magaalada Muqdisho saaka ay soo tooseen xilli wadooyinka qaar ay yihiin ku xiran askar ka tirsan wafdigooda maxooga dalkana ay wadooyinkaasi ku sugan yihiin ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu kormeeray qaar ka mid ah xiriyaha ay ku sugan yihiin ciidanka xooga dalka askarta ka tirsan waxaana meelaha madaxweynaha uu tagay xilligan xogta aan kaleena ka mid ah xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya oo degmada Daynil ku taala iyo sidoo kale xirada General Gordon meel kale ayaa sidoo kale la tilmaamaya in madaxweynuhu uu tagay isla markaana ka mid ah meelaha ay ku sugan yihiin askarta ka tirsan xooga dalka saraakiisha aan wax ka weydiiyay socdaalka madaxweynaha uu ku tagay xerooyinka militariga waxay ii sheegeen inuu kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin cabashadii muddooyinkii ugu dambeysay taagnayd ee ku aadan mushaaraadka ciidamada sidoo kale diiwaangelinta askarta xooga dalka iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab gobolada dalka askarta ku sugan loo baahan yahay inay dardar geliyaan madaxweynuhu weli khudbadiisa iyo sidoo kale hadalkiisii oo dhammaystiran warbaahinta soo ma gaarin oo inta badan warbaahinta madaxa bannaan madaxweynuhu ma raacaan xafiiska madaxtooyada ayaana laga soo diraa wixii warar ay ku soo kordha booqashada ama kormeerka madaxweynaha uu ku tagay qaar ka mid ah xerooyinka militariga Soomaaliya ee Muqdishona dhageystayaasheena waxay ku maqal doonaan wararkeena xiga haddii alla idmo wararka ka imanaya deegaanka Xawaali ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana hoostaga degmada Balcad ee gobolkaasi ayaa waxay sheegayaan in al-shabaab ay gudaha u galeen deegaankaasi sida ay sheegayaan dadka deegaanka al-shabaab marka ay gudaha u galeen deegaanka Xawaali ayaa waxaa la sheegayaa in halkaasi ay ka wateen dhowr gawaari oo ilaahayeen dadka deegaanka Xawaali ayaa wax uu ka mid ah deegaanada ay dhawaan ka soo baxeen ciidamada militariga kuwaasi oo ka cabanaya mushaar la'aan haysta muddo 4 bilood ah dadka deegaanka Xawaali ayaa waxaa soo wajahday cabsi badan oo ku aadan in al-shabaab ay la wareegaan gacan ku haynta deegaanka mar haddii ay ka haysteen dhowr gawaari oo ilaahayeen dadka deegaanka tan iyo markii qaar ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ay ka soo baxeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa deegaanadaasi ka soo agdhawaaday dagaalamayaasha al-shabaab oo markii hore deegaanada duleedkooda ku sugnaa dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan in dagaalamayaasha al-shabaab oo gudaha u soo galay deegaanka Xawaali ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku laabteen deegaanka Yaaqle oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay al-shabaab maamulaan